بسم الله الرحمن الرحيم intii lagu jiray 20kii sano ee u dambeeyay qarniga waxaa jiray isku dhacyo u dhaxeeyay hintire iyo geladi cidda guuleysatay waa mid lagu muransan yahay walow hintire ay saacadihii ugu dambeeyay guusha raacday dagaalkii 1903 kaasoo ahaa dagaal dhexmara labada qabiilkii ugu dambeeyay geladi laf ahaantood waxay qirsan yihiin in guusha laga qaaday dagaalka la magac baxay axad mareerey waxayna eedda guuldarrada saareen markii koox iyaga ka tirsan ay dagaal ka qaadeen ka hor wakhtigii lagu ballamay sida dhaqanka soomaalida ku soo aroortayna in sanadka loogu magac daro dagaalka waxay caddaynaysaa in uu dagaalka ahaa dhacdada ugu muhiimsan sanadka haddaan isdul taagno sanadka 1903 oo loo yaqaano axad mareerey sidaan soo sheegnay axaddii ka horreysay oo ay ka soo wareegtay 8 sano waxay ahayd axaddii caanka ahayd ee loo yiqiin axad shiiki oo ahayd markuu dhacay dagaalkii ka dhacay degmada lafoole ee dhex maray talyaaniga iyo qabiilka wacdaan kaasoo talyaaniga looga dilay antonio sheki oo ahaa guddoomiyihii cusbaa ee dowladda talyaaniga u soo magacowday gobolka banaadir iyo 14 sarkaal oo baxaari ahaa oo la kala socday labada markab ee stafeta iyo volturna iyo weliba 72 askari oo yeman ahaa oo talyaaniga la socday cadaaweytankii kala dhexeeyey hintire qabiilka galadi wuxuu saameyn weyn ku lahaa ka falcelintii dagaaladii talyaaniga ee qabiilka hintire dagaalka aan hore u soo sheegnay ee lafoole kadib 1896 wacdaan waxay fariin u soo direen mareerey waxayna ka dalbadeen sheekh cashir inuu taageero dagaalka socdaa oo ay kula jiraan gumaystaha waxayna ka codsadeen inuu ku taageero xoog iyo asraarba si ay uga guulaystaan gaalka balse hogaamiyaha hintire wuu diiday wuxuuna sabab uga dhigay diidmada in wacdaan ay la safteen gelladii dagaaladii hore ee ay la galeen wuxuuna gaashaanka ku dhuftay inuu guddoomo 100 neef oo lo ah oo maslaxo ah ninkii fariinta sidayna waxa uu galbaday sida la sheegay iyada oon la ismacsalaamayn mowqifka sheekh cashir ee ku aadan gumaystaha wax isbeddel ah kuma dhicin intuu noolaa wuxuuna rumaysnaa in dagaal la galo haddii dhulkiisa lagu soo duulo gaalka oo keliya ma ahayne mowqifka waxa uu ahaa siyaasad guud oo uu u adeegsan jiray xitaa qabaa'ilka kale ee soomaalida ah wuxuu diiday sidaan soo sheegnay inuu ka qayb qaato duulaankii suldaan axmed yuusuf uu ku qaaday qabiilka biimaal wuxuuna u diiday wiilkiisa iyo qaraabadiisa inay ku duulaan soona qaadaan xoolo ay gelladi lahayd iyo inay qabsadaan dhul ay labada qabiil isku haysteen gadaalihii sanadkii 1904 markay iska caabintii gumaystaha ee gobolka banaadir xoogaysatay jawaasiistii gumaystaha waxay soo sheegeen in sheekh cashir uu diiday in uu ku biiro xoogaga iska caabinta waxaana la sheegay in sheekha uu ku amray dadkiisa in ay dagaalamaan oo keliya haddii talyaaniga uu u soo dhaqaaqo gudaha uuna hadidaad toos ah ku sameeyo mareerey walow sheekh cashir uu diiday in uu halis geliyo nolosha dadkiisa haddana fal iyo wuxuu xaajaba u la'aa gaalka taana waxaa caddaynaya siduu gaashaanka ugu dhuftay fariimihii isdabajoogga ahaa ee uu maamulkii talyaanigu u soo dirayey iyo xodxodashadoodii xataa cadowgiisa soomaalida ahaa waxay ammaaneen mowqifkiisii adkaa ee uu iska taagay soo dhoweynta gumaystaha gabyaar ree afgooye ah ayaa wuxuu yidhi isaga oo ka hadlaya mowqifka sheekha ee ku aadan ajaanibta soo duushay wuxuu yidhi cashir maadow caalin mahad wuxuu diiday dariiqii awoodbadsiga iyo inuu soo dhoweeyo gaalka wakhtigaasoo cashir maadow da'diisu weynaatay wiilashiisu waxay tartan ugu jireen in ay booska xukunka buuxiyaan dhimashadiisii sanadkii 1907 kadibna 3 wiil ee ay minyaradu dhashay ama xaaskiisa yar oo kale ahaa xasan xuseen iyo awyoonis waxay qaateen mowqif ah inay colaad kala hortagaan talyaaniga 3 wiil kuma lahayn sumcad weyn guurtida hintire dhexdooda sidii ay ugu lahaayeen wiilasha waaweyn ee sheekh cashir sababta oo ah curadkiisa ayaa noqday sheekha mareerey curad xigeenkiisana wuxuu noqday hogaamiyaha hubeer ee degmada daafeed taa darteed 3 wiil si ay isu muujiyaan waxay bilaabeen inay qaataan mowqif ka xor ah kan rasmiga ah ee ku aadan gumaystaha waxay bilaabeen inay la saftaan dhaqdhaqaaqyadii kooxihii iska caabinta oo sii xoogaysanayay ee gobolka banaadir mareereyna waxay noqotay xarun ay ku kulmaan xoogagaas kana qortaan daraawiishta hintire waxay doorteen markay tahay la dagaalanka gumaysiga inay ku dheganaadaan mowqifkii hogaamiyahoodii waxaa la sheegay in mid ka mid ah dagaalyahanada
oo shirka ka istaagay kuna dhaartay in uusan u taagin gacan gaalka uu ku salaamay sheekh cashir. markuu helay qabarka dhimashada aabbihiis, mid ka mid ah wiilasha uu dhalay sheekh cashir oo uu magaciisu ahaa abuukar ayaa ka soo laabtay Shabeelle, halkaas oo uu u jiray inuu ka caawiyo la dagaalanka ciidamada boqortooyada xabashida. abuukar wakhtigaa wuxuu ahaa darwiish caddaystay, laakiinse wuxuu kula taliyey dadkiisii in ay dhowraan mabda'ii aabbihiis, ayna iska ilaaliyaan raacidda mabda'a saddexda wiil. balse markay talyaanigu bilaabeen inay galaan dhulka gudaha ah ee bishii agoosto sannadkii 1908 markuu ku guulaystay talyaaniga inuu burburiyo kacdoonkii ay wadeen wacdaan iyo biyamaal, kaasoo soo bilowday sidaan hore usoo sheegnay 1896 oo ahayd wakhtigii uu dhacay dagaalkii Lafoole, ilaa iyo 1908 muddo 12 sannadood ah ayaa abuukar iyo walaalihiis go'aansadeen in ay la dagaalamaan soo galootiga raba inuu dhulka qaato. Mareerey waxay ka mid ahayd meelaha ku yaalla webiga jiinkiisa oo talyaaniga lagala hor yimid dagaal xoog leh oo in ka badan 70 dagaalyahan ay ku shahiideen meel u dhow magaalada Mareerey. waxaa shuhadadaa ka mid ahaa qaar badan oo daraawiish ahaa oo loo yaqiin daraawiishta koofureed oo taageersanaa sayid maxamed cabdulle xasan. waxaa ka mid ahaa xuseen maxamed yaxyow oo la ilmo adeer ahaa abuukar iyo ibraahim shucayb, kaasoo ahaa ninka riday xabaddii ugu horreysay qori mar dhow gacanta u soo galay oo ahaa nooca afka qalaad loo yaqaano masketka. gabyaa ayaa ka gabyey sannado kadib, wuxuuna yidhi abuukar cashir maadow waxa uu yidhi kor u qaadi maayo calanka gaalka, hintire geeri ayay ka doorteen gunnimo. markay gaalada yimaadeen Mareerey iyaga oo hugmaya, rag dhallinyaro ah ayaa hor istaagay qoriga afkiisa, waana lagu riday, waana la aamusiyey ilal abad. waxaan aragnay naago badan oo xiran dhar cad iyo carruur badan oo agoomoobay. waxaana sidaa ku qoray buuggiisa Lee Casanelli, buuggaasoo magaciisa uu ahaa The Shaping of Somali Society. bishii Juun sannadkii 1908 guddoomiyihii gobolka Banaadir Carlete ayaa wuxuu u qoray wasaaradda arrimaha dibadda sidan: ma aha inaan dib u dhigno in aan galno dhulka gudaha ah, haddii kale waxaa nagu adkaan doonto in aan qabsanno dhulka hareeraha webiga Shabeelle. marka ay dagaalyahanada baxay 2 bilood ka hor yimaadaan iyaga oo wata qoryo ay ka soo qaateen sheekha waalan, kaasoo uu ku wado sayid maxamed cabdulle xasan, si uu dowladda talyaaniga ugu cadaadiyo dagaal lagu galo dhulka gudaha ah. waxa uu raaciyey warqad sida uu sheegay uu u soo diray suldaanka Galladii horraantii bishaas. warqaddaas oo dhabnimadeeda aan la hubin waxa ay u qorneed sidan: biyamaal way ka tageen dhulkooda, ilaa iyo 4,000 ayaa u kacay dhanka sheekh maxamed cabdulle xasan. waxa keliya dhulka joogaana waa waayeel, naago iyo carruur. xataa hintire waxaan bixin tiro yar. waa inaad dagaal ku qaadaa oo aadan dib u dhigin. waxaa kuu habboon in aad hadda dhaqaaqdo. cadowgaaga kuma adeeci doonaan, waxayna kugu dhihi doonaan waxaan adeecsannahay sheekh maxamed cabdulle xasan. qabaa'ilka hintire, biyamaal, wacdaan, jambaluul, daa'uud iyo moobleen, kuwaasoo tiro ahaan dhan ilaa iyo 100,000 hadday soo noqdaan iyaga oo hub wataa, way naga soo horjeesan doonaan, waxayna faraheenna ka bixin doonaan dhul badan. sababtoo ah waxa ay doonayaan waa dagaal oo keliya. walow ay hubanti tahay warqadda mid ay ka muuqato buunbuunin, haddana waxaa halkaa ka cad sida ay iska caabinta Soomaalida ee gumaystaha u noqotay mid ay ku midoobeen qabaa'ilka. taasna waxay ahayd wixii uu gumaystaha ka cabsi qabay. taa darteed bishii agoosto sannadkii 1908 ciidan xoog leh uu talyaanigu wato ayaa u dhaqaaqay dhanka webi Shabeelle, waxayna calan ka taageen degmada Barhiire. waxayna dagaal fooda isdareen geesiyaal Soomaali ah meel magaalada Mareerey u dhow, waxayna halkaa uga sii gudbeen magaalada Afgooye. qabsashada talyaaniga ee dhulka gudaha ah waxay bilaabantay sannadka la magac baxay sannadkii daraawiishta. intaana waxaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo ku saabsanaa sida talyaaniga uu u qabsaday dhulka gudaha ah ee gobolka Banaadir.